jibriil ibraahim cabdulle oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo sida weyn loogu yaqaano in uu u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha nabadaynta horena madax ugu soo noqday hay-adda cilmi baarista ayaa maanta shuruudihii loogu baahnaa musharaxa u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya u gudbiyey guddiga doorashooyinka ee isku dhafka ah ee labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee soomaaliya. waa maalintii saddexaad muddadii loo qabtay in ay socoto araaji qabashada musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxaana la filayaa in 8 bisha nagu soo foolla ee febraayo in ay noqon doonto xilliga la qaban doono doorashada madaxweynaha waddanka soomaaliya. musharax jibriil markii uu tegay xarunta baarlamaanka soomaaliya waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo ugu hambaliyeeyey musharaxnimadiisa. waxaana uu kulan dheer la qaatay guddiga doorashooyinka isagoo ku ammaanay dadaalka juhdiga ay ku bixiyeen sidii doorashooyinku ay u noqon lahaayeen kuwa soomaaliya u horseeda isbeddel iyo horumar. guddiga doorashooyinka ayaa dhinacooda sheegay in dhammaan howlaha ay u qabanayaan ay yihiin in kuwa lagu hiilinayo ummadda soomaaliya si dalka uu cagihiisa ugu istaago waxaana ay guddiga doorashooyinka ay halkaasi ku guddoonsiiyeen musharax jibriil shahaadooyinkii aqoonsiga musharaxnimo. intii uu ku sugnaa musharax jibriil ibraahim cabdulle waxa uu kulan gaar ah la qaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka cabdiweli ibraahim muudey waxaana ay ka wada hadleen sidii doorashooyinku ay u dhici lahaayeen iyaga oo laga hortegayo musuq maasuq iyo hagardaamooyin kale waxaana uu kulankaasi uu ku soo idlaaday jawi wanaagsan. musharaxa madaxweynaha soomaaliya jibriil ibraahim cabdulle markii ay kulamadiisii u soo dhammaadeen ayuu la hadlay telefishinka universal waxaana uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu ka mid noqdo musharaxiinta sida rasmiga ah ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada soomaaliya waxaana ereyadiisii ka mid ahaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in aan la kulmo guddiga doorashooyinka heer qaran ee guddiga doorashooyinka loo xil saaray doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo guddoonka guddigaas. waxaan kale aad ugu faraxsanahay dhammaan xildhibaanadii shaqada ka waday xarunta baarlamaanka ee qabanqaabada ugu jirtay siday u fududeyn lahaayeen musharaxiinta ugu fududeyn lahaayeen inay buuxiyaan amba ay helaan fursad ay ku buuxiyaan shuruudihii loogu talagalay. waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan noqolkii u gudbiyey laga doonayay musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya noqolkii aan gudbinayna waxaa iyadan wax lagu farxa ah in ay guddigii doorashadu qiimeeyeen aan ka mid noqdayna musharaxiinta rasmiga ah la siiyey shahaadada aqoonsiga oo buuxiyay dhammaan shuruudihii loogu talagalay musharaxiinta loogu talagalay madaxweynaha u tartamaya jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. waxaan mar kale mahad ballaaran u jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddoonka baarlamaanka sida hufan kartida leh ay uga shaqeeyeen in baarlamaankii howshiisa loogu talagalo u qabto. waxaan rajaynaynaa inta ka hartay doorashada inay noqon doonto mid sida ay si lamid ah waqti loo geliyey looga shaqeeyey fursadna siinay shacabka soomaaliya inay si toos uga qayb galaan.